جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله، لننشر الخير في الكون الذي حارى، ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي، ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله، لننشر الخير في الكون الذي حارى. مجلس كان ومجالس الإيمان سيد النبي نوشة عليه الصلاة والسلام إيمان كنا زيادة أو نقصاما طاعتنا وكزيادة مع سيدة غفلة دي ما لا يعني إيمان كنا نقصاما. حنظلة رضي الله عنه كاتب الوحي أيا لكل من أبو بكر مرقاس أبو بكر كوير كيف أصبحت يا حنظلة؟ markaasuu yidhi xandala naafaqa xandala naafaqa xandala yacni waxaan ka cabsanayaa buuhi nifaaq baan ka cabsanayaa. axad kutaab alwaxyi weeyaan markii nebiga calayhi salaatu wassalaam jibriil uu waxyiga u keeno nazala bihi aruuxu alamiinu calaa qalbika litakuna min almundiriin bilisaanin carabiyin mubiin. markii jibriil calayhi salaam uu nebiga qur-aanka iyo waxyiga u keeno raggii nebi maxamed hor fadhiyey ee qori jiray waxyiga nin ka mida buu ahaa maaragtaani xandala. waxauna ka cabsanayaa waa nifaaq. markaasuu abubakar ku yidhi war maxaad leedahay? wuxuu yidhi yaa abaabakar markii majliska nebigaan fadhinay calayhi salaatu wassalaam ee nebigu jannada iyo naarta uu nagala mudaakaroonaayo waxaabad moodaa jannadii iyo naarta inaan u jeedno. maraliya markii adduunyadii iyo baylahdii iyo baycaadkii iyo danihii aan ku noqonnona wixii markii aan xasuusnayn inta badan waan halmaamnaa buu yidhi. abubakar baa yidhi innaa lanalqaa maa talqaa hadal macnihiisu yahay arrintaa adigana aada la kulanto annakuna waa la kulannaa ee bal nebiga inoogii han u sheegnay calayhi salaatu wassalaam. markay rasuulka u yimaadeen ee u sheegeen xawaashoodii ayuu rasuulku yidhi aniga markaad ila joogtiin iimaankiinu halka uu taagan yahay haddii mar walba iimaankiinu halkaa taagnaan lahaa jiyadka iyo firaashada korkooga ayay malaa'igtu nagu gacan qaadi lahayde walaakin saacatan wa saaca buu nebigu yihi calayhi salaatu wassalaam. saacadna waa cibaado weeyaan saacadna waa cibaado weeyaan oo qofku markuu ilaahay caabudayana iimaanka u ziyaadaya. idaa ra'aytum arajula yactaadu almasaajida fashhaduu lahu biliimaan buu rasuulku yidhi haddii aad aragtaan nin masaajidka mar walba xaggiisa u soo socdo waa shanta waqti bay culimmadu ku fasireene qofka iimaan u markhaati kaca buu rasuulku yidhi. salaadu iimaankay ziyaadinaysaa, majliskan iimaanka ayuu ziyaadinayaa. innahu yuxibu majaalis aliimaan buu nebigu yidhi calayhi salaatu wassalaam. ninkii acraabigii ee kaga soo dacwooday rasuulka cabdulaahi bni rawaaxa ee yidhi nebi allow ninka cabdulaahi bni rawaaxa la yidhaha iimaankiibuu saacad keliya ku koobay. markaasuu nebigu ku yidhi allah ha u naxariisto ibnu rawaaxa wax kale ma jeclee majaalista iimaanka ayuu jecel yahay buu nebigu yidhi calayhi salaatu wassalaam. marka iimaanku wuu ziyaadayaa, taacaddu iimaanku ku ziyaadayaa, khafladda iyo malaayacnigana iimaanku waa ku nuqsaamayaa. lidaalika nin baa nebiga u yimid calayhi salaatu wassalaam waxa uu ka ashkatooday maaragtaane qaswata alqalbi qalbigiiba engegay buu yidhi maxaan sameeyaa? waxauu rasuulku ku yidhi imsax ra'sa alyatiimi waadcim almiskiin. agoommahana madaxa u salaax buu ka yidhi masaakiintana quudi buu nebigu yidhi qalbigu markaa buu ku jilcayaaye. innakan allah ina fahamsiiyo. hadda maanta muslimiinta ayaan darrada ku dhacday waxaa ka mid a ziyaadata goormuu iimaanku ziyaadayaana garan mayno, goormuu iimaanku nuqsaamayna garan mayno, meesheebuu iimaanku ku ziyaadayaana la garan maayo, meesheebaa iimaanka dhaawacaysana la garan maayo. bal qofkii maanta adduunyada u ziyaadana uu farxayaa, kay adduunyada ay ka nuqsaantana uu ka murugoonayaa. marka majliskan iimaankeenaa ku ziyaadaya. ilaahayna adduunyadan wuxuuba inoo keenay ujeeddada uu adduunyada ilaahay inoo keenay waxa weeyaan inaan ku dadaalno sidaan u gaari lahayn macrifada ilaahay tabaaraka wa tacaala xaqiiqadeeda. wamaa khalaqtu aljinna waalinsa ilaa liyacbuduun ay ilaa liyacrifuunii. ilaahay wuxuu leeyahay jiniya insi umaan abuuran ilaa haddaan u abuurtay waxaan ugu talagalay keliya inay aniga i bartaan ay i gartaan baa ilaahay yidhi. bini aadanka quwad baa ilaahay siiyey, caqli iyo karti iyo cimri iyo fahmad iyo dhaqaale. waxaa nicmaddaa laguu siiyey ujeeddo kale maahine nicmaddaa ilaahay ku siiyey inaad u adeegsataan loogu talagalay inaad ku gaadho ilaahay macrifadiisa.
dadka adduunyada ku nool dhammaan way dadaalayaan maanta qof meel fadhiya ma jiro qof walba uu dadaalaya dadaal baa ka soo fulaya jirkiisa dadaalka inaga soo fulaya ama wuxuu noqonayaa dadaal ilaahay noo dhaweynaya ama waxau noqonayaa dadaal xagga makhluuqa inoo dhaweynaya meel saddexaad oo loo socdo ma jirta caalamka yawmiyan waagii bariye iyo gabalkii dhacaba qofku ama ilaahay buu u dhowaan oo diin iyo taacad iyo cibaadu ku dadaali oo cibaadada iyo taacadu qofka ilaahay bay u dhaweynaysaa ama qofku wuxuu ku dadaalayaa ashyaa iyo makhluuq iyo maaragtaan adduunyo deena xagga makhluuq iyo ashyaadu u dhowaanaya qofkaas fursad ilaahay fursadan muxuu inoo siiyey nolosha adduunyada dadku waxay moodayaan in loo abuuro inay cunaan ee cabbaan afa xasibtum annamaa khalaqnaakum cabathan wa annakum ilaynaa laa turjacuun ilaahay wuxuu odhanayaa maalinka qiyaamaha ma waxaad u malayseen ama aynila noqotay inaan ciyaaraynii abuurnay ood xaggayga u soo noqonayn adduunyadan bini aadanka ciyaar looma keenine bal bini aadanka waxaa adduunyada loo keenay inay ilaahay tabaaraka wa tacaala macrifadiisa xaqiiqadeeda ay gaadhaan baa loogu talagalay bini aadanku xawaa'ij badan buu leeyahay baahiyo fara badan buu bini aadanku u qabaa baahidii bini aadanku u qabayna ilaahay baa le taa aniga igu daaya iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin addoonku markuu sidaa yidhaahdo ilaahay wuxuu leeyahay haadaa baynii wa bayna cabdii addoonkii markuu yidhaahdo ilaahu adigoon baanu ku caabudaynaa gargaar iyo kaalman adigoon baanu kaa sugaynaa ilaahayna waxau leeyahay haadaa baynii wa bayna cabdii taasi aniga addoonka inaga dhaxaysaa minka alcibaadatu wa minii alcawn adigana cibaadadii ha kaa sugnaato annagana kaalmayntiiyo gargaarkii nagu daa buu ilaahay ku leeyahay adigu annagana raalligeli baa ilaahay kuuda adigana annagaa ku raalligelinayne araada lanaa shay wa araada binaa shay waxbaa ilaahay inaga doonay innaka muxuu ilaahay inaga doonayaa ilaahay waxau inaga doonayaa inaan awaamirtiisa fulinno inaan isaga cilaaqo dhaba la yeelanno inaan isaga keliya tala saaranno inaan isaga keliya ka cabsoonno inaan isaga keliya rajayno inaan isaga keliya rumayno inaan isaga keliya barino taasaa ilaahay naga doonayaa innaka inaan ka fikirna mar walba saacad walba daqiiqad walba maalin walba sanad walba bil walba maadaa yuriidu allahu mina ilaahay muxuu inaga doonayaa taas markii addoonka ay ka soo fushay isaga ilaahay waxau leeyahay annagana kaalmayntiiyo gargaarka nagu daa haddii toole minka alcibaada wa min iyaaka nacbudu baa horraysa shardiga addoonka laga doonayaa horreeya mawcuudkuna u dambeeyaa markaas bal qur-aanka u fiirso in tansuru llaha yansurkum baa layidhi haddaad ilaahay u gargaartaan ilaahay waa nii gargaarayaa adcuunii astajib lakum baa ilaahay ibarya anna ducada markaa waa niga ajiibayaa ibarya waa niga ajiibayaa ii gargaara waa nii gargaarayaa minka alcibaadatu wa minii alcawn adigana cibaadadii iyo taacaddii ha kaa sugnaato kaalmiya gargaarkiina annaka nagu daabaa ilaahay ku leeyahay wacada allahu aladiina aamanuu minkum wacamiluu الصaalixaati layastakhlifannahum fi اlardi baa ilaahay yidhi kuwa iimaankii camalka saalixa laga hela waxa ilaahay u yaboohay inuu maamulka adduunka yaka u dhiibaayo iimaan iyo camal saalixna waa matluub weeyaan khilaafa islaamiyana waa mawcuuda weeyaan mawcuudkii baa maanta ummaddu ay ku hanqaltaagaysaa matluubkiina waa laga tegey mawcuud lidaalika ilaahay addoonka waxbuu ka doonay muxuu ilaahay naga doonayaa ilaahay naga wuxuu naga doonayaa inaan isaga keliya rumayno bas yaa mucaad atadri maa xaqu llahi cala alcibaad wamaa xaqu alcibaadi cala allah buu nebigu dhaha calayhi salaatu wasalaam mucaad binu jabalow ma ka warqartaa ma og tahay xaqa ilaahay addoonka uu ku leeyahay iyo xaqa addoommuhu eebba ay ku leeyihiin mucaad radia allahu canhu wuxuu yidhi allahu warasuuluhu aclam arrintaa ilaahayba iyo rasuulka iga oqon la buudhi aniga markaasuu nebigu ku yidhi yaa mucaad xaqa ilaahay addoommaha ku leeyahay waxa weeyaan inay dadku ilaahay keligii caabudaan oo keligii ay tala saartaan oo keligii ay rumeeyaan oo keligii ay baryaan oo keligii ay rajeeyaan oo keligii ay isku hadleeyaan yaa ilaahay cidda isaga barida ee tala saaratay caabudana ilaahay tabaaraka wa tacaala in waxay xaq addoommuhu ilaahay ku yeesheen ciddii ilaahay caabuday cibaadada u balax tirtana inuu ilaahaysan cadaabin addoonkii baa xaq lagu leeyahay xaquna ilaahay buu addoon ku yeelanayaa bal diintan islaamka cadaaladeeda u fiirsada ilaahay waxau inaga doonaya innaka marka horraysa waa maxay inaan maaragtaan amarkiisa aan qaadanno sidii uu naga doonaya waa inuu naga helaa adduunyadana meel baahida bini aadamka lagu dhammaystiray ma ah adduunyadan waa caalam ujeeddo keliya bini aadamka loo keenay ujeeddadu waa maxay dadku inay adduunyada kala tagaan iimaan iyo camal saalixa halkan raaxa adduunyada ma taallo
الدنيا الراحة هديتها لنا ضدك إلهي جعلاب الراحة سين لها لو كان لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملا فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. النبي قول عليه الصلاة والسلام الدنيا الراحة ما تعلم مال باهيد بن آدم ويكون ما يسر ما يسن إلهي الدنيا كما دقين بقى كل جني والباهين نمبرها كقلدن نين نمبر روس حسين عالم كما جرو قال يا إسلام عبداني مدو كالدنيا وقود غالبا إلا كالدنيا وقود هوسيا دمان ويباهيهين باهيد ودون الدنيا كما دم يسر ما يسن نبي قال شيء يرين هذا الهدين لسي تقده بصعود وقلقلايا كل بعض بجعلان برسول كبير مال باهيد بن آدم ويكون جوكسة الدنيا لقما دقين بل الدنيا وحا الله طلق لي ماشي لقى السعي قادنا السعيد اللي قادنا ومعي وتزودوا فإن خير الزاد التقوى سعيد اللي قادنا والله كياب ويان الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد اليوم الرحيل بما معلك فسر تقوى إله جليل كل لقى عرشده قرآن كل لقى دغمه قناعة الله يشوق قفوا أرزاقات انت أبا وطلق لأوكو قنعه مالين قدتكو أيوكو رجونان الله انتقال ينا وأنه أدونك مؤمنكو أديار قربو ويان الدون كان ومال وقال السعي قادن ويان السعيد اللي قادن ومحي السعيد اللي قادن وإيماني اللي كياب ويان وحكا لما إيمان بالله قادن يلا كياب marka ay insaankan waxa adduunyada loo keenay bini aadanka laga dooni waa inuu fahmo waxa ilaahay uu ku siiyay ee nicmad oo dhan wuxuu ugu tala galay in aad u adeegsato inaad ku gaadho macrifada ilaahay taas adduunyada lagu keenay laakiin nasiib daro ayaan daro dadku maanta dariiqi loogu tala galay intay ka weecdaan kulligeen waxaan badanaa dadku maanta waxay ku dadaalayaan ilaa man raxima rabbi siday makhluuqa u garan lahaayeen iyo siday makhluuqa uga faa'iideysan lahaayeen nebiyaduna calayhim assalaam waxay la yimaadeen siday bini aadamku khaaliqa u garan lahaayeen khazaa'inta khaaliqana ay uga faa'iideysan lahaayeen taasay nebiyadu la yimaadeen nebi ilaahay ma soo saarin oo qur-aanku ma sheegin dadka maaragtaane u sheegay ama u tilmaamay sida arlada looga faa'iidaystee bal nebi walba wuxuu la yimiday siday dadku ay ilaahay ugu xidhmi lahaayeen beena iimaankii camalka saalixa ay khazaa'inta ilaahay ugaga faa'iidaysan lahaayeen taasay nebiyadu la yimaadeen qowmu nuux way tiro badnaayeen qowmu caad way quwad badnaayeen qowmu hamuud khibrad bay lahaayeen sanaacaday khibro u lahaayeen qowmu shucayb tijaaraday khibro u lahaayeen qowmu saba ziraacaday khibro u lahaayeen qowmu ibraahim boqortooyaday khibro u lahaayeen qowmu ciisa طibigay khibro u lahaayeen qowmu moxamed luqada iyo balaaqaday khibro u lahaayeen carabtuna dadka caalamka soo maray ummad walba waxbay ku faanaysa oo xirfo u ahay ummad walba waxbay tala saaranaysay ummad walba agtooda waxbaa qiimo ku lahaa laakiin nebiyadu waxay la yimaadeen waa shay keliya weeyaan wamaa arsalnaa min qablika min rasuulin ilaa nuuxii ilayhi annahu laa ilaaha ilaa ana faacbuduun nebiyadu waxay la yimaadeen dadka inay ku xidhaan ilaaha khaaliqa bas ilaaha macbuudka dadku ilaahay inay gartaan cibaadadana ilaahay u badhaxtiraan baryada ilaahay u badhaxtiraan ilaahay keliya cilaaqo la yeeshaan maa siwa allah oo dhanna ay cilaaqada ka goostaan taasay nebiyadu adduunyada la yimaadeen bal sheega qur-aanka ka sheega nebi ummadda wax kale ugu yeedhay qur-aanku ma sheegin afdalu maa qultu ana wannabiyuuna min qabli laa ilaaha illa allah buu rasuulku yidhi nebiyadu maxay la yimaadeen nebi kasta caalamka markuu yimiday waxay ummadiisu haysato wax ka horumarsan ulama iman bal wuxuu ula yimiday shaygan dadku ay haystaan wuxuu nebi walba ummaddiisa u sheegay inuu yahay shay yaroo manfaco gaaban tijaaradda manfacadeedu way gaaban tahay ziraacadda manfacadeedu way gaaban tahay sanaacadda manfacadeedu way gaaban tahay quwadda manfacadeedu way gaaban tahay waaifka inta la joogon baa laga intifaaci dadna waa laga dhiman laakiin nebiyadu waxay la yimaadeen shayga bini aadanka ifkana anfacaya qabriga ku anfacaya qiyaamaha anfacaya jidka siraad anfacaya jannada gelitaankayga ay ku mutaysanayaan iimaani camal saalixa weeyaan shaygaas fa ilaahay jalla wacalaa bini aadankan
وحاو كدغ قلبك عالمك بني آدمك وقلبك أدوية ويان هدو بني آدمك هدو إصلاح بني آدمك كون كون با إصلاحي هدو بني آدمك حمادنا كون كون با حمان dadka qalbiga ka bukooda dawo male baa leeyahay haddii koonku baa leeyahay qalbigiisu waa basharke hadday basharku islaaxaan caalamka oo dhan baa islaaxi hadday basharku xumaadaan adduunka oo dhan baa xumaan bini aadamkuna halkuu ka islaaxaa halka bini aadamku ay ka islaaxaan dhagaha iyo aragga iyo gacmaha midna maaha halka bini aadamku ama ay ka xumaadaan ama ka islaaxaan waa qalbiga alaa inna fi ljasadi mudqa idaa salaxat salaxa aljasadu kulluh wa idaa fasadat فسد الجسد كله ألا وهي القلب بالنبي عليه الصلاة والسلام بني آدم قالوا كإصلاح وقلبك ويان هلك وكحم هذا وقلبك ويان قلبك محكو إصلاح يا قلبك محكو إصلاح يا شيء الله قلت لك لقلبك مركو فريستو قلبك إصلاح يا شيء الله قلت لك لقلبك مركو لقوا هنا قلبك وحمان يا مركز قلبك محل قلت لك لي قلبك waxa kaliya loogu talagalay inay fadhiisato ilaahay macrifadiisu iimaanka meeshiisu waa qalbiga weeyaan walamma yadkhulu al-iimaan fi quluubikum ba ilaahi iimaanka halka uu qalbi iimaanku fadhiisto waa qalbiga weeyaan nabiyada waxa loo soo dirayna inay kelimada tawxiidka qaadaan oo meeshii loogu talagalay ay gaarsiiyaan ayaa nabiyada loo soo saaray calayhim assalaam taasay ku dagaaleen nabiyadu hadduu qofku ilaahay jalla wacala uu garto uu khaaliqa garto uu ilaahay cilaaqad la yeesho uu ilaaha aamirka uu garto amarkiisa markaa u fududaanaya xuquuqdii ilaahay buu markaa garanaya xuquuqdii addoomaha ayuu garanaya diintuna waaba laba weeyaan waa xaq addoonkii ilaahay u dhaxeeya iyo xaq u dhaxeeya addoonkii addoomaha ilaahay labada weeyaan nabiyaduna calayhim assalaam bini aadanka halkay kaga dadaaleen waa qalbiga weeyaan qalbiguna wax kale kuma islaaxee qalbigu waxa ku islaaxayaa waa laa ilaaha illa allah hadday fadhiisato wa alzamahum kalimata taqwa wa kanu xaqqa biha wa ahlaha ibn Abbas wuxuu yidhi waa kalimata tawxiid ilaahay jalla wa ala quraanka waxa uu ku sheegay asxaabu muhammad qulubtoodii inuu dhex fadhiisiyey kalimatu taqwa ibn Abbas wuxuu ku fasiray waa kalimatu tawxiid laa ilaaha illa allah weeyaan asxaabta nabiga halka markay kelmadaasi qalbiga ay u gashay xaqi ilaahay bay garteen xaqi nabigay garteen xaqi waalidiinkay garteen xaqi ubadkay garteen xaqi dumarkay garteen xuquuqdii jaarkay garteen xaqi qaraabaday garteen xaqi muslimkay garteen xaqi bahaayimkay garteen xuquuqda ay gaaladu leeyihiin bay garteen waxay noqdeen khalqi caalamka dhan anfacay noqdeen khalqi caalamka dhan anfacay وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أي زمنك نبيك حقيقة كن نقطة عالمك فمركا بني آدم كنا بالليل وحا وكدد على النتيجة ديس وهليا هدي تدخل كدد على أدوية منفعة ذا وهليا هدي دينتي إيمانك كدد على منافع الدين والإيمان وهليا تدخل haddii adduunya lagu dadaalo adduunyada waa la heli waxaan biroo dhan adduunyadan waa dhooban weeyaan waxaan maanta caalamka oo dhan guuxaya birtaa iftiimaysa birtaa hawada keenaysa birta qeylada dheeraynaysa birta caalamka kula hadashiinaysa birtan caalamka loo raacayo birtan caalamka hadalkaaga u tuuraysa waxaasoo dhan waa natiijatu tiin weeyaan dhoobadaa laga soo saaray waa macdantii arlada laakiin arlada khayraadkaa goormuu ka soo baxay waa markay bini aadanku ay arlada u fikireen weeyaan fikirkii markii loo fororiyey arlada sideen uga faa'iidaysanaa manaaficdii arlada markaa soo baxday manaaficdii arlada markay soo baxday maxaa dhacay bini aadankii qiimihiisii hoos buu u dhacay laakiin berihii iyo qoryihii baa bini aadankii ka qiimo batay iminka mata imse maaha soo maahinde macawista iyo qofka maanta midkee qaalisan magaalada muqdisho bal ka jawaaba ya meeqaa iyagoo salaaddii subax u socda macawis laga saarto la dilay bini aadankii qiimihiisii hoos buu dhacay caalamka maanta
maxaa horumaray dadka maanta waxay leeyihiin zamankan waa zaman alcasri waa horumar waa taqadum zamankan taqadum maaha waa ta'ahur weeyaan taqadum waxaa la yidhaahdaa waa zamankii nebiga calayhi salaatu wasalaam zamankii nebiga bini aadankaa horumaray zamankanna maanta berihii iyo xadiidkii baa horumaray war maan qaldanahay mise waan toosanahay ya bal ka fikira aawey aawey cadaaladii aawey kala dambayntii aawey maxabadii aawey ixtiraamkii aawey iska warhayntii aawey isku naxariisashadii aawey sifaadkii insaaniyadda loogu talagalay caalamka way ka zuushay sifaat alxayawaaniya baa maanta adduunyada ka dhacaysa nin walba waxuu ka fikirayaa sideen anigu noolaadaa sifaat alxayawaaniya waa maxay xayawaanku waxa weeyaan xayawaanku waa 4 martabay leeyihiin 4 darajo imse darajo 4 xayawaanka la yidhahda bahaayimka la yidhahda almawaashi waalbahaayim cidna ma dhibaan maslaxadoodana way ka fikiraan cidna waa shimbiraha geela lo-da ariga dameeraha fardaha wamaa ilaa daalika maslaxadooday yaqaaniin cidna ma dhibaateeyaan lo-diioo biyo raadinaysoo arooraysa saca u dambeeya hadduu biyo helo intuu iska cabuu iska dhex marayaa kuwa horena u sheegi maayo xayawaanka dabaqad waa taa weeyaan dabaqadda labaad waxa weeyaan waa sibaac dugaagga la yidhaha dugaagga libaaxa iyo dhurwaaga iyo shabeelka iyo yeyga iyo dacwada iyo ilaa ay dhiig daadiyaan may dhargaan ma dhargaan basharka maanta nuuc baa sidaasa maanta caalamka dhiigga walaalkii uu daadinayo ayuu maaragtaan isagu ka faa'idaysanayaa ilaa uu dhiig daadiya xaajadiisu ma gudmayso dabaqadda ku xigta waxa weeyaan alxayaat waalcaqaarib xayawaanka la yidhaah abeesada iyo dabaqalooc baalkan aad tidhaahdiin iyo masaska iyo jidkaabuu sun la fadhiisan cid allee ciddii soo martuu qab ku siin wax faa'iidou ka helayana habeeraatee isagu ma jirto bini aadamku maanta caalamku waa saddexdaa weeyaan inanka da waxaad leeyihin mooryaantii caalamka mooryaan casriyaysan baa jirto o dawladaysan inanku hor uma haysaan saddexdaa sifaa maanta bini aadamku ay leeyihiin dadka ugu fiican maanta adduunyada waa dadka aanan dhibaynin maslaxadoodana ka fikiraaya waa muslimiinta cubaadda la yidhaha ahlulcibaadada ah qolana waa dabaqadda labaadoo ilaa uu dhiig daadiyo xaajadiisu ma gudmayso qaybta saddexaadna waa maxay jidkaasuu dhibaato la fadhiisanayaa ummadduu dhibayaa wax faa'iiduu ka helaya habeeraatay ma jirto hay sifaddii insaaniyaddu aawey sifaadkaa waa sifaadkii xayawaaniyaddee aawey sifadii basharka loogu talagalay sifadii basharka loogu talagalay nebigaa sheegoo yidhi laa yu'minu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibuhu linafsihi oka sifaat alinsaaniya waa sifaddaa weeyaan iimaan male buu nebigu yidhi ilaa qofku wuxuu naftiisa la jecel yahay walaalkii la jeclaado sifaadkaasina caalamka maanta way ka zuuleen fa nebigeennu calayhi salaatu wasalaam iyo jamiica alambiyaa waarusul kumay dadaaleen sidee dhulka looga faa'iidaystaa sidee bini aadamku ay horumarkan beraha u helaane bal nebiyadu waxay ku dadaaleen sidee buu bini aadamku u islaaxaa halkuuna ka islaaxayaa bini aadamku halkuu ka islaaxo ama uu ka fasaado waa qalbiga nebiyadu dadaalkooga waxay ku bixiyeen qalbiga ayay islaaxinayeen qalbigu muxuu ku islaaxayaa hadday qalbiga fadhiisato macrifadda ilaahay markaasuu qalbigu islaaxayaa qalbigii markay gasho ilaahay cabsidiisu ilaahay jalla wacalaa maaragtaani haybadiisu ilaahay maxabbadiisu ilaahay rajayntiisu qalbiga markay gasho ayaa xubnaha waxaa ka soo baxaya markaa addaaca wax la yidhaha daacaddaa dhib yaraanaysa salaaddaa dhib yaraanaysa qur-aanka akhriskiisaa dhib yaraanaya cadaaladdaa dhib yaraanaysa samafalkaa dhib yaraanaya maxabbadaa dhib yaraanaysa kala warhayntaa dhib yaraanaysa leanna xubintii hoose ayaa islaaxday markaa xubintii maadaamay islaaxday ra'iisiga ahayd xubnihii kaleo dhanna markaa way toosayaan lidaalika caalamka maanta horumar baa lagu sheegayaa horumarka waxaa horumaray
وبرهي ويانا يضوبديه يا خشبكي قريبا هرومره لكن بني آدمك ما هرومرين بل بني آدمك وحو هرومري وزمنك النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني وفي رواية خير القرون قرني بان رسولك يري ددك قرنك ما انت عن جوجو ايات ددك ugu خير بدن بو رسولك يري وفي رواية النبي wuxuu yiri خير القرون قرني قرنيده قرنيga baa ugu خير بدن بو رسولك يري قرنيga muxuu ku خير batay caalamka waxaan maanta aan haysanay technology zamanka ma oolin birahan hadlaya ma oolin birtan duulaysa ma oolin birta shidmaysa ma oolin birtan hawada keenaysa ma oolin birtan wax dilaysa ma oolin birahan caalamka qaarad saacadeer u duulayna zamanka ma jireen laakiin maxaa zamanka yaalo lagu horomaray zamanka waxa lagu horomaray waxa weeyaan dadku waxay garteen xaq ilaahay bay garteen xaqi adoomaha ilaahayna way garteen caalamko dhan waxa loo nisbaynayaa maadaama jamaacadii nabi maxamed uu kawinay ay ku nooleed adduunyada waxa la yidhi qarniyada qarnigaasa ugu khayr badan waxaa la odhanayaa togga u socda toggu ma socdee biyihiibaa daadkiibaa soo rogmadoo daad ka socday ayaa tog oo dhan loo nisbaynayaa qarniga daatadiisu khayr ma lahayne bal jamaacadda zamankaa joogtay baa khayr badnayd qarnigii oo dhan iyakaa markaa loo nisbaynayaa allah ina fahamsiiyo toggaabaa socdaa la odhan toggii ma socdo toggu siduu u socdaa roob baa da-ay daad baa soo rogmaday biyahan socdaa toggii oo dhan loo nisbaynayaa lidaalika nebigu waxau yidhi khayru lquruuni qarnii qarniyada qarnigaan joogaa ugu khayr badan qarniga maaha daatadiisa waxa khayr badane bal waxaa khayr badan dadka zamankaa joogaybaa ayaa noqday dadkii dadka ugu khayr badnaa noqday imaamu alambiyaa baa joogay abubakr sidiiq baa joogay cumar baa joogay cusmaan baa joogay dadkaasuu nebigu ku dadaalay calayhi isalaatu wasalaam qabla alislaam siday ahaayeen bacda alislaamna siday noqdeen kayfa kaanat alcarab qabla alislaam halka maanta innaku aan marayno way ka darnayn iyakuna xaaladday dadkeenna ka taagan dalkeenna xaalad ka daran bay ku jireen innagu waaban eedaamayna oona shahaadanayna xaalad adag bay ku jireen dadkiibuu nebigu ku dadaalay calayhi salaatu wasalaam raggii waxay noqdeen abubakar radia allahu canhu mansabkee buu helay khayru nnaasi bacda alambiyaa nebiyada marka xaggaa loo saaro kow ninka ummadda khalqiga ilaahay abuuray ugu khayr badan abubakar buu noqday cumar mansabkee buu gaadhay low kaana bacdii nebiyan lakaana cumar baa nebigu yidhi haddii ani nebi iga dambayn lahaa cumar baa nebi noqon lahaa buu rasuulku yidhi cusmaan radia allahu canhu markuu nebigu ceelka uu lugihiisa ku raariciyey ee maaragtaan jilibkiisu maradu ka yar bannaanayd abubakar baa fadhiistay sidii buu nebigu ahaa cumar baa soo fadhiistay sidiisii buu rasuulku ahaa cusmaan baa yimiday isla markiiba nebigu maradiibuu sii daystay caaisha radia allahu canha baa ku tidhi yaa rasuul allah aabbahay abubakar baa yimiday kamaad xishoon cumar baa yimiday kamaad xishoone cusmaan maxaad uga xishootay bay ku tidhi markaasuu nebigu yidhi maxaanan uga xishoonayn caaishaay nin ay malaa'igtuba ay ka xishoonayso waa cusmaan maalintii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu maaragtaanay muhaajiriinta iyo ansaarta uu walaaleeyey cali keligii buu nebigu soo reebay markaasuu cali murugooduu yidhi yaa rasuul allah aniga ma cid bahamaad ila walaalaysay ma keligay baad aniga igu dhaaftay markaasuu nebigu yidhi yaa cali adduunkan iyo aakhiraba adiga anaad ii walaaltahe aamus buu rasuulku ku yidhi maalintii tabuuka uu nebigu baxayeyna cali waxau kaga tegey madiina khaliifkiisii buu ka dhigtay juhud nebigu dad buu ku dadaalay dhoobo dhagaxna kuma dadaalin ashyaa kuma dadaalin nebigu waxau ku dadaalay waa basharka likulli ummatin amiin wa amiinu ummatii abaa cubayda buu rasuulku yidhi ummad walba aamin bay lahayd aaminka ummaddaydu waa abaa cubayde buu rasuulku yidhi wamaa xadasakum ibnu mascuudin fasadiquuhu cabdullaahi ibnu mascuud waxa uu niiga sheekay oo dhan rumaysta buu rasuulku yidhi man sarahu an yandura ilaa rajulin min ahli ljannati man sarahu an yandura ilaa shahiidin yamshi calaa wajhi اlardi falyandur ilaa طalxa bn cubaydillah buu rasuulku yidhi ninkii jecel inuu arko ahlujanno arrada dusheeda socda ha arka buu nebigu yidhi طalxa bn cubaydillaah likulli nabiyin xawaariy nebi walba gargaare ayuu lahaa aniga gargaarahayguna waa zubayr buu rasuulku yidhi calayh isalaatu wasalaam dadkoo dhan buu nebigu yidhi jannaday jecel yihiin jannaduna waxay jeceshahay salmaan iyo miqdaad
iyo bilaal iyo camaar bay jeceshahay buu rasuulku yidhi mansab ruba ashcasa akbara madfuucun fi labwaab low aqsama cala allahi la abarah minhum baraa binu malik nebigu wuxuu yidhi badanaa kuwa boodhaysan oo timahoogu rifrif ay leeyihiin oo albaabada lagu celiyo oo hadday ilaahay ku dhaartaan daartooda ilaahay aqbalaayo baraa binu malik baa ka mida buu rasuulku yidhi nebigu kuma dadaalin dhoobay wuxuu ku dadaalay bashar dad wuxuu u yimiday sida maanta innagu aan ku jirno si ka daran ku nool dadkiibuu dadaal iyo fikir iyo duco u geliyey dadkii waxay noqdeen sidiiqiin bay noqdeen asxaabu maxamed bay noqdeen markii dambe suxba darajad ka sarraysa ma jirto ciisena xawaariyiin buu lahaa baa la yidhi nebi maxamedna asxaab baa lagu magacaabay jamacaddiisii asxaab khaatama alambiyaa bay suxbad la yeesheen saxaabatu moxamed baa la yidhi cali bnu abi aalib baa la weydiiye oo lagu yidhi abubakr asidiiq iyo mu'minka ahle fircoon midkee fadli badan wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartee mu'minka ahle fircawn oo arlada laga buuxiyey saacadda abubakar uu godka nebi maxamed kula jiray ayaa ka wada khayr badan buu yidhi daaka rajulun yaktumu iimaanahu kaasi nin wuxuu ahaa iimaankiisa qarsanayey wa haada rajulun aclana iimaanahu abubakarna nin wuxuu ahaa iimaankiisa markiiba muujiyey oo nebiga isgara taagay buu ahaa calayhi salaatu wasalaam fa kuma dadaalin nebigu dhoobada iyo arlada iyo turaabke bal nebigu bini aadankuu ku dadaalay bini aadankuu ku dadaalay quwaddiisi iyo fikirkiisiina wuxuu ku bixiyey siday bashariyaddu u islaaxdaa siday bashariyaddu ilaahay u garataa dadkana sidee bay ilaahay ugu dhowaadaan dadku sidee bay ilaahay abuuray cilaaqa ula yeeshaan taasuu nebigeennu ku dadaalay calayhi salaatu wasalaam ummadihii hore baa la yidhi mar allii markay ilaahay wax uga baahdaan nebiyaday u sheegan jireen waid istasqaa muusa liqowmihi nebi muuse qoomkiisu markay biyo doonaan nebi muuse yidhahdeen noo weydii ilaahay biyo xawaariyiintu markay doonaan in ilaahay maa'ida u soo dejiyo hal yastadiicu rabbuka an yunazila calayna maa'idatan min aلsamaa nebi ciisey maraynays yidhahdeen noo weydii ilaahay inuu xedhan noo soo dejiyo reer bani israa'iil markay dooneen in laga bedelo in cuntada samada ka imanaysa looga bedelo oo maaragtaane cunto ay u tabcaan la siiyana nebi muuse ay u sheegeen ay ku yidhaahdeen ilaahay noo weydii in maaragtaane arlada u nooga soo saaro tamaraad iyo mudho walaakiin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo asxaabtiisii la jooga oo khaatamu lambiyaaya oo imaamu lambiyaaya oo ducadiisa la aqbalaayo ayaa ilaahay ku yidhi wa qaala rabbukum adcuunii astajib lakum aniga toos ii weydiisa waxaad doonaysaan ducadiina waa niga aqbalayaa khaasiyaadka ilaahay ummadda nebi maxamed uu siiyey bay ka mid tahay nebigii oo dhex jooga baa lagu yidhi ilaahay iyuu ku yidhi iweydiista waxaad doonaysaan waa nin yeelaya aniguna barya waa niga ajiibaya dhammaan asxaabta nebigu ducaddooda mustajaabay ahayd limaada ilaahay bay barteen xadhig ilaahay bay qabsadeen ilaaha khaaliqa cilaaqa dhaba la yeesheen ducadoodii baa noqotay mustajaaba nebi sulaymaan calayhi salaam qoomkiisa nin ducadiisu ay mustajaabo tahay baa ku jiray oo sila billaahi ilaahay cilaaqa la leh markuu doonay carshigii bilqiisin loo keena maaragtaanay falastiin uu nebi sulaymaan ku yidhi qaala man yaatiinii bicarshihaa qabla an yaatuunii muslimiin qaala cifriitu min aljinni ana aatiika bihi qabla an taquuma min maqaamika cifriit jinka ka mida wuxuu yidhi dhowr saaca ayaan carshiga bilqiisa ku keenay buu yidhi halkaas qaala aladii cindahu cilmu min alkitaab asif binu barkhaabay mufasiriintu dhigeen magaciise wuxuu yidhi ana aatiika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuka ilgibirhs ayaan carshiga bilqiisa ku keenay buu yidhi min alyaman ilaa iyo maaragtaanay falastiin egaa muxuu haystay sila billaah ilaahay buu cilaaqa la yeeshay allah ina fahamsiiyeen qur-aanka allah ina fahamsiiye iimaankana qalbiga allah inoo dhaadhiciyo xaqiiqat aliimaan allah ina siiyo hal duco keliya ninkaasi waxaa la yidhi ismu ullahi alacdam ku yaqaanay ilaahay buu cilaaqa la lahaa falamaa ra'aahu mustaqiran cindahu qaala hada min fadli rabbii ilgibirhs ayaa carshigii bilqiisa min ardi alyaman
إلى فلسطين لقوا كان القبرس. ولكن أصحاب النبي رضي الله عنهم إمس خوارق العادات إمس كسو ظاهرة نلوشو كم سيدنا عمر رضي الله عنه عمر بن عاص مركو مصر تجي dadka reer Masar caado waxay u lahaayeen gabadhii dhalata gabadh bikira oo shaabada qurux u dhalatay labadeeda waalintay raali galiyaan lacag iyo dahab wax walba siiyaan ayay webiga Niil ku tuurayeen deedna webigu markaas biyihiisu ziyaadayeen deedna markaas beeraha ku waraabsanayeen caadadii buu ka joojiyay abaar baa dhacday biyihii baa sii gudhaya reer Masar waxay u dhawaadeen dalkaba inay ka baxaan markaa buu joojiyay عمر بودري رسالة مركز يا أمير المؤمنين أرنت أصلا كوارك الرئيس مصر وأنا كجوجي بيه نواسي قول يا أنا محان سمية مركز عمر كويد أصبت وادا صيبتي بوكيد وادا صيبتي مارك تاني وادا صيبتي لكن وحنكون شيء يا ورقد ما صدر يا أخيار تولي عقاشو دا أوروريو وبيجا النيل دلتك ورقدان وبيجا كد الفرو كد الأخري لأن كد تربو يري وحي إلهي كفل ماشا ودرك دون تاي وعمر قفبا قف ورقدو درا تاسا معقولة سوما قفبا وبي ورقدو درا كورما وصلة بالله علاقة مع الله بها لأن الكاس ورقد ديبو كاني ورقد وحاكو قرن من عبد الله بكسعتا أمير المؤمنين عمر بكسعتا إلى وادي نيل بكسعتا إن كنت تجري من قبلك فلا تجري حتى أود أن لا تكسعني سكوا بانينها السعون hadduu ilaahay ku socodsiinayay weligaana allaha waaxidkee qahaarka waxaan weydiisanay inuu ku socodsiiyo warqadii baa lagu tuuray 16 diraac ayuu kor u kacay baa la yidhi webigii ilaa joogadeena webigii isma taagin biamri illaahi yajri amarka ilaahay baa ku socdaa reer Misr cuqaashoodii iyo salaadiintoodii markay arkeen karaamadaas fadakhaluu fi diin illaahi afwaaja qisada labaad waxa weeyaan sayyidina Umar رضي الله عنه مدينة المنورة منبرك كخد بدينيا عيداً كي صحابي السارية ووتي فلسطين جوغي قالوا دبر جبين تعير ربين إني كسم أيام هل كعسو عمر كلاها اللي كلمات خطبة دعانا كل جيرين أي كسو ضروري يا سارية الجبل ويا سارية الجبل يا سارية حق بورتا يا سارية دنع بورتا اسكفيري خطبة دي مركو كدا دعي أصحابت ويا بين يا أمير المؤمنين ما أنت محاتري مرقا سروحاني لهذا إني شيء مايه عيداً كالله كيني بولي ودركي دونتان جماعة دي بصور نقطي فتح يا غنيمة إلا صور لامين يا غلبة يا هزيمة يكو صوت قوليستي مرقاسي أحواشي بياميين مالين عين كاسا أنكو دقالكي وديار قروني ومعركة دقالكي ونوب بالامي أيا قالوا دبر جبين نقصوا السميين فسمعنا صوت عمر وسط الجبال بورد بحدود أنكو مرينا هذا الكي عمر ما هلقا كم غلبي دادين هذه علاقة مع الله مرات ليس مرة آخر سسير أصحاب مرات بدها يدل مرين بدها أصحاب رسولكم مشوا على البحار هذه النبي عيسى موسى عليه السلام قوم قيسى بدأ إلى هاي أكل جاحيب علبدوا إلى أصحاب محمد نبي محمد لسعن أي أصحاب النبي قوة بيدها يدل مرين فرضوه قي وهذا إبراهيم الأدهم دوني بو لسعودي دونتي با كعدي موج بدي با آدو كعدي داتكي دونت لسعودي ودن أيقنوا بالهلاك هلاك بي دريمين فصاحوا الصيحة ويقيلين رقية دمر أبط ويقيلين هل مركلية وشيخي هردادي بو كعي مركاسو أركي دونتي ومر حقا أوقع دوميسا مر حقا أوقع دوميسا داتكي ودن أي جيري وديار نقديني وذقيليان مركاسو قعما عيرك وتاقي يا ربي أريتنا قدرتك فارنا عفوك إله قدرت هذه نتسته دلقات أجينا نتسبو يلي بدي با إلهي فريسية مركلية علاقة مع الله بأولا مسلمك ورياضة مسلمك وحي دونانها سوء أقاتان قالدو نيكا مسلمك وحي إلهي سيئ قوة عالم كودن هدي الله بربر ريغانو دقمين علاقة مع الله سيرة كلها ما سيرة آخرستا أصحاب الرسول محي هايستان عالم كمرك اللي قوة جاي قالوا هايستان يا أصحابته وحي هايستان أصحابته وحبا ما هين لكن سلة بالله بيلها علاقة مع الله
darsigaana ayay ka qaateen khaatamul-ambiyaa bay ka qaateen khaatamul-ambiyaa ghaswatu daat ariqaac markii asxaabtu ay ka soo laameen waqti duhur geed hadh macaan bay nebiga u dhaafeen iyakuna geeda kaley raadsadeen markaa buu nebigu seeftiisii soo qaaday geedka ayuu sudhay markaasuu nebigu geedkii hoos seexday yaana daba socda nin mushrika oo acraabiya khawrath binu xaaris la dhihi jiray ayaa daba socda reerkiisii baa la soo dhammeeyey dadkiisii baa la soo laayey xoolihiisii baa la soo qaatay imisuu ninkaasi cidho iyo cadhow haya nebiga asxaabta inuu cidlo ku helo uu u jeedaa nebigoo geedkii hoos hurday keligii asxaabtuna way seexdeen wakhti dahiira weeyaan cadaad waa kulayl geed hadh fiican baa nebiga loo dhaafay seeftiisi nebigu geed ku sudhay uu seexdeen nebigu calayhi salaatu wasalaam ninkii nebiga intuu dul yimiday ayuu seeftii galka ka saaray markaasuu nebigu ku kacay rasuulku markaasuu nebigu indhaha kala qaado waaba ninkii oo dul taaganba markaasuu yidhi alaa takhaafunii miyaanad iga cabsanayn markaasuu nebigu yidhi maykaa cabsan maayo markaasuu yidhi man yamnacuka minii ayaa iga kaa mancin kara maanta markaasuu nebigu yidhi allah 3 jeer weli asxaabta nebigu war kama haya qisada dagaalkaa meesha ka dhacaya nebi maxamed mooyaane asxaabtiisu war kama qabaan way hurdaan waa sida xadiisku dhigayo seeftii baa ka dhacday ninkii isla markii nebigaa seeftii qaatay nebigu markuu seeftii qaatuu ninkii qabtay ayuu nebigu asxaabtii u yeedhay soo kaca buu yidhi way soo kaceen markaasuu nebigu qisadii meesha ka dhacday min alif ilaa ya ayuu asxaabta uga warramay muxuu uga jeedaa nebigu qisadaas ina haada اkhtarada calaya sayfii wa ana naa'imun faاstayqadtuhu wa fii yadihi saltan faqaala lii alaa takhaafunii faqultu laa faqaala lii man yamnacuka minii faqultu allah 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 fasaqada sayfu min yadihi qisada meesha ka dhacday asxaabtu may joogin laakiin nebigaa uga warramaya muxuu nebigu uga jeedaa qisadaa uga warramaya ya tawakulkuu barayaa tawakul ictimaad cala allah makhluuqoo dhan siduu u dhan yahay laa yataxarak ila biiraadatihi walaa yaskun ila biiraadatihi wain yamsaska allahu bidurin falaa kaashifa lahu ila hu wain yuridka bikhayrin falaa raada lifadlih laa maanica lima acطayta walaa mucطiya lima manact walaa raada lima qadayt walaa yanfacu da ljadi minka aljad ducaa bacda kuli salaa buu nebigu ducadaa akhrin jiray ummaddana nebigu ducadaa u baray ducadiisu waa iimaan waa nafyiya isbaat qur-aanku waa iimaaniyaad qisasu الصaxaaba iyo siiradii nebi maxamed o dhan iimaankay ku baraysaa uxud ghaswatu uxud iyo ghaswatu beder ghaswatu xunayn imise duruus baa ummadda nebiga ugu duuban hadday ummaddu fahmaysa diin kam duruus fi hada alghazawaat beder 70 gaalay laayeen 70 gaalana way xidheen uxud 70 asxaabtii nebigaa la laayey intaasoo ragna waa laga dhaawacay labadaa ghazwo culammadu waxay yidhahdeen midkee manfaco badan ibn qayim aljawzi zaad almacaad wuxuu ku sheegay ghaswatu uxud ayaa ka manfaco badan buu yidhi ka faa'iido badan ka cibro badan ka duruus badan ka futuuxaad badan buu yidhi kow ta labaad waxaa la ogaaday cadowgii gudaha ku jiray baa la ogaado 300 oo munaafiqiina isla markiiba gooni u baxday beder lama garan munaafiqiinta laakiin uxud munaafiqiinta muslimiinta ku dhex nool baa la gartay maalinkii darsiga labaad waxa weeyaan waxaa kaloo la tusay ummadda nebiga in muslimiinta inay dhintaana ay meesha ku jirto oo ilaahay qaarkood uu shuhadaa ka dhigan karo darsiga kale waxa weeyaan jamaacu nebigu qaaduu buurta dhigay jabal rumaat halkaa haddaan ka dhaqa haddaan adkaaniyo haddiina naga adkaadaba ha ka dhaqaaqina buu rasuulku yidhi dagaalkii baa bilaabmay isla markiiba gaaladii waa la jebiyey haniimadii bay gurteen muslimiintu jamaacaddii uu nebigu buurta duldhigay ayaa iskhilaaftay qayb waxay yidhaahdeen dagaalkii u dhammaadee haniimadii xoolahan guranay na dhaadhiciya qolo waxay tidhi nebigu ha dhaadhicinay buu he joogay xaggay u dhaadhacaysaa
khilaaf maxaa dhacay khilaaf ijtihaadi weeyaan waa khilaaf ijtihaadiya weeyaan jamaacaddii qaarna way hadheen oo amarkii nebigay fuliyeen qaarna way soo dhaadhaceen isla markiiba khaalid bin waliid iyo cikrima oo ciidanka fardaha ee mushrikiinta watay ayaa arkay ciidankii buurta dhabarjebinta ka ilaalinayay oo kala jabay isla markiiba dhabarjebin bay ku soo sameeyeen muslimiintii oo khaniimadii oo xoolihii guranaysa ayay xagga dambe kaga yimaadeen 70 asxaabtii nebiga ka mid a ilaa 71 bay laayeen nebi maxamedna dhaawac baa loo geystay maalinkaas aaway nusraddii nebi maxamed uu dhex socdaa asxaabta abubakar uu dhex socdaa cumar uu dhex socdaa abubakar uu ku jiraa cusmaan uu ku jiraa mubashiriintii way ku jiraan muhaajiriintii way ku jiraan ansaartii way ku jiraan ahlulbeder oo dhan baa joogta ducadooda waa mustajaaba cid ilaahay uga dhowiye kama jirto maxaa looga adkaaday nasrigii maxaa looga rafacay waxaa la yidhi nasrigii waxaa looga rafacay jamaacadda nebigu uu buurta dhigay ayaa amarkii nebiga jebisay maadaama amarkii nebi maxamed aad jebiseen fa markaa nusraddii ilaahay waa niga rafacay weeyaan hal amar oo nebi maxamed ka soo fulay hadday khata ijtihaadiya ay u jebiyeen oo ilaahay nasrigu ka rafacay ummaddaa maanta dhibaatada ku jirtae diintii ka fogaatay sidee bay nasri ilaahay ku filan inay ku hesho nebi maxamed oo jooga ayaa nasrigii laga rafacay ummadda markii amarkii nebiga ay jebiyeen waa darsi ilaa yowma alqiyaama ogaadaa lagu leeyahay aayaddii maxay ahayd maclin minkum man yuriidu awalkeygii id tusciduuna walaqad sadaqakum allahu wacdahu id taxusuunahum biidnihi xata idaa fashiltum watanaasactum fi اlamr wacasaytum min bacdi ma araakum ma tuxibuun minkum man yuriidu اdunya wa minkum man yuriidu اlaakhira ثuma liyabtaliyakum walaqad cafa cankum afartaasaa ku dhacay fashal tanaasuc xub اdunya macsiyadna way ku dhaceen amarkii nebiga haddii la jebiyey macsiyaa dhacday haddii asxaabtii nebi maxamed cid ilaahay uga dhow caalamka aysan jirin amar nebi maxamed ka soo fulay qaarkood hadday ijtihaad u jebiyeen nebigaoo la jooga nasrigii laga rafaco 70 nin ku dhinteen oo nebi maxamedna lagu dhaawacay ummadda maanta taarikusalaagii ciidda ka batay nasri ilaahay see ku filanaysaa allah ina fahamsiiye fa walaalayaal ma huwa alxal xal waa maxay iqaamat alumma cala addiin xal kale ma jire waa in ummadda mar labaad lagu dadaalaa oo lagu istaajiyaa maa kaana calayhi الnabiy wالصaxaaba asxaabtii nebi maxamed iyo zamankii nebiga ummaddu waxay qabtay iimaan iyo diin haddee mar labaad ummaddu u soo noqoto gargaarka ilahay halkiisii buu taagan yahay gargaarka ilaahay waa halkiisii diyaar buu ilaahay leeyahay gargaarkiisi laakiin ciddii loo gargaarayaa caalamka jiran maanta gargaarka waxaa la sheegay in mu'miniin loo gargaaraayo in allaha maca aladiina taqow maciyada ilaahay muttaqiin baa la sheegay inay helayaan aaway muttaqiintii aaway mu'miniintii wallahu yuxibu almuxsiniin baa la yidhi aaway muxsiniintii wallahu yuxibu asaabiriin baa la yidhi aaway saabiriintii ina allaha maca asaabiriin baa la yidhi aaway saabiriintii maanta sifaadkii qur-aanka way ku taallaa laakiin dadkii sifaad kaa qabay maanta caalamka intay joogaan fa juhdiga dacwadda walaal waa inaad fahamtaan walaalayaal waxaa dacwadda looga dalinayaa waxa weeyaan war mar labaad ha soo noolayno sifaat aliimaaniyaat sifaadkii lagu mutaysanayay gargaarka ilaahay iyo maciyada ilaahay iyo maaragtay nusradda qaybiga ayaa looga dalinaya dacwadda in lagu soo nooleeya mar labaad taasaa dacwadda looga dalinayahay khuruujka 4 bilood iyo 40ka waa wasaa'il weeyaan walwasaa'il laha xukma almaqaasid walakina alhadaf waa maxay ixyaa jamiic maa jaa bihi الnabiyu calayhi الsalaatu wasalaam in la nooleeyaa loogu talagalay waxa le wixii nebi maxamed uu la yimiday muxuu la yimiday nebi maxamed diin dhammaystiran iimaan kaamila diin dhammaystiran diintu zamankeenna kutubtay ku dhammaystiran tahee nolosha bashariyadda way ka maqan tahay
هل كان نبي محمد دين تو كل ما يسترينا ما هين كتب والله وحو كل ما يستري حياة الصحابة رضي الله عنهم نلشي أصحاب دين تو كل ما يستري حياة الصحابة وحياة دي إلهي ورالك كان نقضي ويان إلى رضي الله عنه فلذلك ورال ما تفردي نوم الجوق فردي نوم الجوق والله ما نفت هذا كود دال عالم كنا وكسرقيا ساد نفت هذا كود دال نفت هذا ساد إلهي يقول والله بشر كالدوية كنا ولا هذا إلهي حقه ويقول إلهي ودوا إلهي تاسع إلهي إنك ينو دورتي هذا الشغل أو كعنو إلهي الدعاء إنه أقبليا إلهي بينو قرقارايا حبيب النجار تضبات السنة أيو سنة بعابد أيي صدح نبا صومرتو الرسول وحيري أنو سنة بكاسان عابدا برس يا حنون كان وان قبا الدين اللي مدقنو ميبا كدقنا هاي هذا ديدو عيسان وان إسلامي هذا ديدو عيسان وحنون كان إلهي يقدو القاضو أنا وان راعي بيدي وان الإسلامي وأدعيين حنوكي با إلهي كدو القاضي هروك إسلامي ويسور دافين مقالة دي بإيمادين dadkii bay diintii iyo iimaanka ugu yeedheen markaasaa loo tashadoo la yidhi saddexdan nin wax cusub bay la yimaadeene hala laayo xabiibu najaar baa maqlay qoomkiisii inay u tashadeen saddex rusul oo ka socota maaragtaanay min cindi illaah bay mufasiriintu yidhaahdeen qaarna waxay yidhahdeen nebi ciisa soo diray haluma jar isku wadagee waa ducaad weeyaan saacadda gaadhe saacaddaad noo eegaysaane الله نفهم سيو وصوغا بيننا ان شاء الله ويمدي قرانك وعجيب ويان وقلبك قرانك لو شيغ قصداس وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين سلامركي بو سو اوردي اوردكيسي با قرانك لو شيغي رغنimo buuxda loo marxaati kacay socodkiisii ba quraanka lagu sheegay هذا الكوكوه اللي القرآن كي لهي وكل شيء محير يا قوم تلك يوم اتبعوا المرسلين كوا الراعة وتدبوا الليبان إنسانه اتبعوا من لا يسألكم أجرا ولي بنفن كان أجر يا مشقايد نقضوني مايان اسكر راعة وتدبوا هنون إنسانه يكونوا يهانون سيهين محو يري بالليل نمن كان واحد بيا نقضوني مايان لعاق نقضوني مايان محو يري مركي ودعيين إلى هاي عافماتك وصيي أي حول الربين وصيي الليل markaasay ku yiraahdeen anagu waxba ma qaadano ilaahay dartii baan ummadda wax ugu sheegnaa dadkan xaq ilaahay baan ugu yeernaa shaqadana waa shaqo ilaahay noo doortay annaka way hanuunsan yihiin buu yidhi oo nimankan diintu wayba ka muuqataa iyaka taqwadii baa ka muuqata iimaankii baa ka muuqda daacadii baa ka muuqata cadaaladii baa ka muuqata ixsaankii baa ka muuqda noloshoodii baa diin ka muuqataa waan arkay anigu ariska raaco daba liibaanaysaan markaasay saddexdii rasuul waaba iska iloobeenoo isagii bay markaa qabteen baa la yidhi markaa bay ku yidhahdeen adiguna ma raacsan tahay wamaa liya laa acbudu aladii fataranii wa ilayhi turjacuun maxaanan u caabudayn buu yidhi ilaaha ee abuuray ee bilaabay ee xaggiisa loo noqonaayo ee makhluuq oo dhan iska abuuray kaa inaan caabudo xaq bu igu yeeshee cibaadadiisuna waa igu waajibe maxaanan u caabudayn buu yidhi ilaahaas kaasi xaggiisa igu yeedheen markaasay ku yidhahdeen diinta ka noqo kama noqonaya buu yidhi dhulkay ku aaseen baa la yidhi markaasay miishaar dul dhigeen ka noqo diintaada culimmada qaar waxay yidhahdaan maye meel dhagaxle intay dhex seexiyeen ayay dadkii magaalada ku yidhaahdeen qof walooba dhagax qaadoo ku dhifo sidaa ha ku dhintee xabiibu najaar cajiib innii idan la fii dalaalin mubiin haddaan diinta anu aan ka laamo baadi cad iyo dalaal cad baan ku suganahay buu yihi khasaaro cad innii aamantu birabbikum fasmacuun halkaa isagoo jooga buu dacwadda fidinayaa u fiirso innii anigu aamantu waxaan rumeeyey birabbikum rabbigiina ayaa rumeeye fasmacuunii maqla buu yidhi waa markii u dambaysay naftu ay ka sii baxayso ee midida loola dul taagan yahay ayuu hadalkaa ku hadlayaa waxaa la yidhi way dileen ilaahay qur-aanka waxuu ku sheegay mar allii markay dileen isagii ilaahay wuxuu ku yidhi qiila adkhuli iljanna adigu horta jannada gal baa lagu yidhi xabiibu najaarow jannadii markuu galay ee manaasisheedii iyo karaamadii markuu arkay muxuu yidhi qaala yaa layta qawmi yaclamuun ibnu cabbaas wuxuu yidhi nasaxa qowmahu xayan wamayita isagoo nool
iyo isagoo dhinsan baa ninka qoomkiisa u nasteexeeyey buu yidhi cajiib way dileen markay dileen iyakii may raaxaysan kamay dambayn ninka ay dileen waa nin daaciya waa nin dareen ummadeed leh waa nin ummadda u samafalayey waa nin ummadda u nasteexaynayey 3 rusul u kaalmaynayey xaqa ayuu ummadda ugu yeedhayey ninkay dileen nin ciyaara maaha waa nin ilaahay agtiisa qiimo kula weeyaan waxaa la yidhi wamaa anzalnaa calaa qowmihi min bacdihi min jundin min aلsamaa wamaa kunna munziliin in kaanat ilaa sayxa jibriil calayhi salaam baa lagu yidhi waagu markuu baryey wada kacaan hal mar keliya ku qayli baa la yidhi hal mar keliya ku qayliyey qalbiga iyo maskaxdaa wada dilaacday baa la yidhi kam muslimaa maanta caalamka ku dhimanaysa oo lagu laynayaa ilaahaw noo gargaar muslimiinta duca kasti salaad walba meel kasta gaalaa laga habaarayaa miya habaarkii maanta hal nin bay dileen qoomkaasi halkii nin baa ilaahay raaciyey qoomkii oo dhan hal malaayiin muslimiina maanta la laynaya caalamka aaway ducadeenu halkay tegaysaa waa duco shuruuddii baan loo buuxin shuruuddu waa maxay dacwadda horta ka horraysa 950 sano nuux ayuu ummaddiisa qoomka ugu yeedhay qoomkiisuu diinta iimaanka ugu yeedhay markay gaalnimadii ay ku caddaatayna rabbi innii maqluubun fantasir ilaahow layga qaalib noqoy haddee toole ilaahow ii gargaar buu yidhi 950 sano dacwad hal habeenna maaragtaane duco ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر با إلهي مدمرات الإلهية صمد يدلك بي اللغفري هل قفوا قال أدويدكم أهل المالكاس فأولا لي شروطها بوحنو دعوتها نكعنو حق دعوة مركان فولنو دعادنا مستجابا نغن وحان دونا إلهي مركان السينية ده الشغل دائنا نكعنا ديار مونهي ayaa bal u diyaara cimrigiisa laga bilaabaa maanta laga bilaabaa inta uu hadhay inuu diinta ka shaqeeyo taaga gacanta la bakhaylina lama goosanaye allah inoo dhib yareeyo aamiin dhahada walaalayaal dhageysta mid baan iga dalbaynaa si aad u dhageysateen awal ilaa aakhir ha kicin haddaba fadhiya ijtimaaci baa dhow ugu yaraan 300 oo jamaaca sanadkan doonaynaa inay dalka gudihiisa iyo dowladaha afrika oo dhan ay jamaacadeenu gaadhaan maan doonaynaa culimmada waxaan ka maqalnay hadba halka jamaacadeenu ay gaadhaan baadilku inoo soo dhaafi maayo baa la yidhi hadba halka jamaacadeenu ay gaadhaan baadilku inoo soo dhaaf khayrkeennaa socon baadilku halkaa inoo soo dhaafi maayo khayrkeennuna uu socon uu sii galay shaqada diinta wax weyn baa ku jira allah ina fahamsiiyo fa nuriid majmacan nin duca qaata habeen dambe jamaacadadii oo dhan habeen dambe soo xeroonayaan ilaa 100 jamaaca la filaya habeen dambe 4 bilooda inay soo xeroodaan haddii 500 oo jamaaca min 4 bilooda muqdisho ay ka baxdana weli inta suuqa ku hadhay ma yar yihiin ma yaro fa in sha allah bal halla hadhinin walowba xooggaaga iyo tamartaada iyo raganimadaada ilaahaa kugu deeqay adna ilaahay ku deeq khud min nafsika linafsika weeyaan marka lagu leeyahay ilaahay dartii u bax waa naftaada ka qaado naftaada u qaad weeyaan dacwaddu cid wax u qabanaysid ma jirto adaa soo islaaxi dad badanoo muslimiinana sababtaada ilaahay ku toosin shaqadana maanta caalamka inooga furan waa fursa saciida weeyaan فمركا إن شاء الله كل جن هرت وان ديوتين عمرجه